بسم الله ديد دولميغا جوجي دولميغا حتى غيرين دولميغا حدادن أديغا دولمي سمين عدنا دولمين حتى غيرين oo sidoo kale diid haddaad adiga wax dulmiso jooji dulmiga maxaan u leeyahay sidaasi kow arrin waxaa jirta ilaahay subxaanahu wa tacaala naguma saliido dad naga awood badan waatuu rasuulullaahi sala allahu alay slam ku ducaysan jiray ilaahow allahuma laa tusallit calayna man laa yakhaafuka walaa yarxamuna waa riwaayad رواية كلام واحد اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا إله أن نقول سلدين عد أنا كابقين نونا نحري سنين كو سيدا سوكر واحد جرتا إله أن نقول سلدين دنبي أن أنا قلنا السبب تيسا عد أنا كابقين نونا نحري سنين فيديو كان أيان أركي رون أهانتي ميل وين أي أقول waa laga yaabaa inaad aragtay bal in yar aan shido wax kala maaha aabbahay suuliya saxiix lagama haayo arrintaan adaa galayo u xeran yahay adaa maslaxa u galayo u xeran yahay yaa muslimiinoo noo soo gurmanaayo dad masaakiin oo jariiraan dhahay waa wiil uu dhalay aabbe macalin cabdikariin bilaal oo si sharci darro ah xabsi ugu jira ninkii u weynaayaan ahay waxaa ilmaha ila sawaran aabbahay ilmaha u dhalay waaye 8 bilood bishaara u dhalatay uu xeran yahay nin la yaqaano oo muctarafana waa yahay khalinuu nagu soo koriyey ninka u weynaayaan ahay ilmihiisa jeestuu nagu soo koriyey qof alla qofkii rabtaa taqaan nin dulmiloowa ma aha nin askuluustaa ma aha nin balwadla ma aha ilmahaas ninka u weynaayaan ahay waxaad gadaashayda taaga waa hooyooyinkaygii iyo eedayaalkay waaye ilmaha meesha taaganna waa ilmihii u dhalay laa hawla walaa quwata illaa billahi alcaliya muslim ma jira miyaa noo soo gurmana ma jira miyaa hal qofoodaa naga bixi kartaa xerigaas naga dayi karto meeshaasaan ku nool lahay intaanoo xaasa intaanoo ilmaha ama walaalihiisa asigaa ka wakiil ahaa waxaana lagu gumaadaana inaan jareenahay waay wax kala maaha aabbahay suuliya saxiix lagama haayo arrintaan adaa galayo u xeran yahay adaa maslaxa u galayo u xeran yahay yaa muslimiinoo noo soo gurmanaayo dad masaakiin oo jariiraan dhahay maadna markaan baxdo qutuliyoonkaan ugu filanaa soo shaqaysanaa wax kaloo meel loo dhigma male hanti ma lihi xoola aan leenahay male dadka islaamka waxaan ka rabnaa inay wax noo qabtaan macalin cabdikariin bilaal oo ku magac allah subxaanahu wa tacaala ha ka dulqaado cid walba dulman dhibta iyo dulmiga lagu hayo run ahaantii xamuriga ah ciil ah in ummaddaasi masaakiinta ah ee jariirta ah ama cid walbo la dulmiyo soomaaliya lagu dulmiyo in weli arrintaa ay jirto waxaa laga yaabaa in aada og tahay waana hubaa inaad og tahay dad badan ayaa soomaaliya ku dulman oo ku dhiban dad badan ayaa waxa lah looma ooyaan waa looma ooyaan magacyadooda haddii inaan sheego waxba muhiim ma aha way badan yihiin waa qabiilo waa ummad waa dad waxaan in badan fiirsaday arkay xildhibaan professor talxa oo arrimahaas ka hadlaya run ahaantii ilaahay sidoo kale ha u naxariisto ninkii professorka ah professor enow oo dhintay waa hore ma ahan adiga sanad 2 sano meelahaas 2 sano kahor meelahaas ka dheh dhintay arrimahaas uu ka hadlaya isagana wuxuu yidhi markaan maraykanka imid anagoo professor ahoo dad dabcan jaamacad wax ka dhigaayo ayaa waxaan arkuu yidhi ardaydii aan wax u dhigaya qaar ka mid ah soomaaliyeed oo dhahay waanana cunsuriyeeya maraykanka cunsuriyaa taalla markaasa waxaan ugu jawaabo yidhi ilaah u naxariistee waxaan ugu jawaabay ma og tihiin inaan kusoo kornay annagoo soomaali ah waddankeenana joogna cunsurinimadaasi oo idinka aada nagu hayseen
soomaalida ka cabanaysa dibadaha joogta cunsurinimo iyo dhib ay gaalada kala kulmayaan, discrimination nagu haya sidaa ka cabanaysa, waxaan leeyahay xaqiiqatan arrintaasi waddankeena marka aad fiiriso tagto ama aad joogtay dabcan waad garanaysaa cid waxaa jirta mar walba liidata, dhulka taalla, laga guursan way badan yihiin, dadka soo gelin dhexdooda la yeeso, la liido, ummad looma arko, birahay noo sameeyaan, mindiyahay sameeyaan, kobahay sameeyaan, xirfaday leeyihiin, waa dad sharaf leh, gacantooda wax ku soo saara. jambalka ama kobaha qoladaasi ay samaysay soomaalida ah waa lagu liidaa, makhaaray ka sameeyaan waa lagu liidaa. isla jambalkaasi ama saandalaha mid la mid ah oo lasoo sheeneeyey ama magac lagu soo dhuftay talyaaniga ka yimidna waa la faaniyaa, kora loo qaadaa, waa khaali, lama heli karo, made in Italy aa ku qoran. kii waddankeena lagu sameeyey oo asaga la mid ahaa, u fiirso hadalkaasi, ciddi samaysay waa cid liidata, la yeeso, aad iyo aad dhulka u taalla. arrintaasi imisay jiraysaa? kale way jirtaa ilaa haddeertan waad ujeedaan. videogan maalin ka hor weeyaan, maantaan arkay aniga oo la ii sheegay weliba. imisay jiraysaa arrintaas? dulmiga noocaas oo kale ah raalli ma ka tahay adiga? raalli ma ka tahay adiga? waxaan hubaa inaadan ka ahayn, aad iyo aad. qof walba dulmiga raalli kama aha, ma rabo. laakiin asagoon raalli ka ahayn ayaa waxaa laga yaabaa si dadban inuu u samaynayo qofka dulmiga. waxaan aad iyo aad ula yaabaa, aan arkay, bal video ahaanna u fiirsaday, dad guryo wareejinaya. 30 sanaan gurigaan ku jiray, waan ku ilmo dhalay. 20 sanaan gurigaan ku jiray, waan ku ilmo dhalay. 25 sanaan ku jiray gurigan, waan ku ilmo dhalay. sidaas waa. marka waxaan maanta gartay xaqii ilaahay aan gartayo waan iska wareejinaa, ilahay darsan u wareejinayaa. kuwa dhaha iyo kuwa xoog looga qaado oo taagan aniga intaasaan ku jiray, ilaalintaan ilaalinaya iyo gurigan dayactirkan ku sameey hal isi lacagteeda, weli dulmiga la taagay. waad aragteen laga yaabaa videoda noocaas oo kale ah. subxaan allah. waxaa laga yaabaa dadka qaarkiisa markaan arrimahan ka hadlaayo inaynan u bogin, waa laga yaabaa. dad badan aad u badanna inay taageeraan arrimahan markaan ka hadlaayo. dadka qaar oo aan u bogin waa dad aad u yar. sababtayn ugu bogin waa maxay? badanaa waxaasi qofka u bogin ama hadalka marka la leeyahay dulmiga hala joojiyo ka hor yimaada, asagaa sameeya, asagaa ku jira. مثلا waxaa ka hadlaysaa war dumarkaan la dhibin, war carruurtaan la dhibin, war dumarkaan inta guursataan aad ka tagtaan, meeshaas aga tagtaan, guursataan aad ka tagtaan, guursataan aad ka tagtaan, joojiya. war carruurtaan aad 20 inta u dhashaan midkoodana aadan wax u haynin, waxna siin oo meelna ku ogeyn aad ka tagtaan, joojiya. marka laga hadlo rag badan aad arkaysaa caytamaayo, luqyadan ugu soo galo dagaal diyaar u ah. maanta qofka asagaa sameeya. sidaa darteeda in laga taabto ma rabo, in la sheego ma rabo. ninkan oynaya waa nin oday ah, waa nin ciroolo ah weliba. inta carruur ee gadaashiisa taagan waad arkaysaa. hadda waxaan idinka tusaayey sheekh cabdifataax meesha boggiisa facebooka, abu sacdudiin, ilaahay xaafida waa saaxiibkayga maasha allah. sheekh cabdifataax waxaan ku salaamaya baaraka allahu fiik, jazaaka allah, sida aad ula qaybsato waxyaalaha muhiimka ah ummadda walaalahada ah. ilaahay kaa abaalmariyo. meeshaan idinka tusaa hadirtan. marka waxay tahay xaqiiqatan arrin muruga leh, aad u liidata. wallaahi message dheer ayaa la iisoo qoray adiga 2 week ka hor. hal xaba ma ahan, 2 message kala duwan, laakiin 2 qof ayaa iisoo kala qoray, 2 xilli kala duwanayna ahaayeen. mid wuxuu arkay sida aan uga hadlo dumarka iyo dhibaatada lagu hayo iyo in ay dulman yihiin oo ayna tahay inaan diidno,
ayaan video noocaas aan laga hadlay ayay hoostiisa comment lagu qoray kadibna message khaas ah ayaa emailka laigu soo diray emailka dulmidiid hadalka wuu dheeraa waxaa in badan ku jirtay oo uu ka hadlaya qofkaasi uu leeyahay waxaan deganahay ama aan ahay dadka baraaba dega sidaas u qoran yahay sidaas ayuu u qoran yahay bal haddaan akhriyo wuxuu iigu qoran yahay dabcan email ahaan uu igu jiraa commentigan wuu kusoo qoray dabcan marka wax private ama aha wuxuu leeyahay waxaan ahay qof degan baraabe degmada baraabe haddaan bilaabo hadalka akhrintiisa sidoo asaga usoo qoran akhrinaya assalaamu calaykum sheekh maxamed waxaan ahay qof ka soo jeeda degmada baraawe gurigii aabahay iyo hooyadayda waana laga dhacay waxaa degan dad kale si walbaan u dacwoonay way diideen in ay nooga baxaan maxkamadda mar walba aan tagno oon dacwad gudbino wayna soo celisaa oo lacag badan ay bixiyaan laaluush ah sidaa darteeda mar walba waan soo laabanaa markii ugu dambeysay xildhibaan ayaan wadanay oo kasoo jeeda beesheenna xildhibaankii hadalkii oo maxkamadda iyo markhaati furkii iyo dariskii iyo dadkii dhan marka la keenay xildhibaankii waxaa lagu sameeyey in loo goondiyey la handaday kadibna waxay ku qasabtay danta xildhibaanka xataa inuu ka guuro meeshaasi degmada baraawe dadka degan waa dad hub haysta dad awood leh iskama celin karno sheekhow arrinta dulmiga in badan ka hadashaa ee fadlan arrintaasi iyo waxa lamidka ahee soomaaliya ka jira guryaha xoogga lagu haysto kasoo hadal waxaan nahay looma ooyaan wallahi waa saas sidaas u qoran yahay waxaan nahay looma ooyaan waxaana la dhahaa looma ooyaan ma haysano hub manihin dad dagaalama iskama dhicin karno xaafadaan deganayn oo aan kirada ugu jirnay waxaan aga soo tagnay oo aan baraaboo dhan uga soo guurnay handadaadooda markaan dacwad ahaan u tagnana meeshaan seexano waan qarinaa maxaa yeelay inayna dilaan ayaan ka baqnaa aan ka cabsanaa hadalkan wuu dheer yahay aada u dheer yahay laakiin waa calaacal iyo dhib dad oo haysto aan ognahay soomaaliya haddaan nahayna inay arrimahan ay jiraan okay message kale oo kaa asagana lamidka ah ama dhambaalka kale ee kaa lamidka idinla qaybsada asagana run ahaantii dadaa oynaya hadda aan kula hadlayo ama videoga aan duubayo ama aad hadda daawanayso videoga dadaa oynaya dadaa ciiloonaya dadaa xanuunsan oo la xanuunsanaya dulmi lagu haayo dad ayaa la ciilciilaya hadalkan kala dhegayso waa gabar arrinta taasoo kale taqriiban ay tahay weliba waxay ku dhowdahay tan hadda ninkan xiran oo kale waxay leedahay salaan kadib sheekhow aabahayga wuu xiran yahay muddo 3 sano ah ayuu xabsi ku jiraa waxaa xirtay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada dowladda dukaan ayuu meel ku lahaa dukaankiisa ayaa supermarket weyn laga ag furay supermarketka si uu u socdo darteeda dukaankiisa waxaa la dhahay xir annagaa lacag yar ku siinaynaa wuu diiday ma xirin dukaanka kadib asagoo ku jira dukaanka qoryo lagu qabtay askar loo soo watay dukaankii wixii ku jiraan laga jajabiyey kadibna waa la watay waa la kaxaystay waana la xiray 3 sano ayuu xiran yahay cid u hadasha ma lahan cid u dooda ma lahan sheekhu hadalkeena soomaali gaarsii waan dhibannahay asaga ayuu ahaa isha keliya dhaqaale aan leenahay 3 sano aniga reerkeena biila waxaan ku biilaa allahu akbar war waxaasi wax la akhrin kara ma aha waxaan ku biilaa 3 sano aniga reerkeena biila waxaan ku biilaa dhididkayga ayaan ku biilaa
waxaan soo shaqeeyaan siiyaa carruurta oo aabahayga dhalay waa 4 aniga aan ku 5 ahay qof weynaan ahay aniga oo 33 jir ah waxaan rabay hami ayaan lahaa inaan guursado sidaas waxaan rabay hami ayaan lahaa inaan guursado laakiin xiritaankaas aabahayga kadib guurkii waan iska dhaafay waxaana u soo jeestay in walaalahayga 4 ah aan u shaqeeyo hooyadeeda way xanuunsan tahay si kastoo aan u dacwoonay oo aan xabsiga u tagnay aabahayga waxaa lagu xiray lacag inuu bixiyo lacagtiina maba haysto oo dukaankii waana laga jabiyey arrintaa way fog tahay dabcan hadalka laakiin haddaan nuxurkiisa idiin soo gudbiyo waxa waa tan oo kale isla tan ah supermarkeda meel laga furay oo kale ama mukhaayada meel laga furay oo weyn dad waxaa furtay xoogaa hantile iyo wixii la midka ama magac leh ama dadka hubka haysta ah iyo wixii la midka way isoo martay iyadoo noocyo kala duwan ah oo dadkii masaakiinta ah meesha hore wax ugu lahaa xoog looga qaado ama looga kiciyo iyo wixii la midka way isoo martay tan laakiin 3 sano qofkan xiran yahay sida ay sheegayso waxaa cajiib ah oo ay leedahay mustaqbalkayga anoo 33 jir ah waxaa ku cad 30 sano jirta marka aabaheeda la xiray guuray mar walbana rabtaa inay guursato reer dhisato u fiirso qof weyn waa 33 jir ah waxaad dareemaysaa ummad waxaa jirta sidaa loo dulmo xabsiyada isaga jira hadda ninkaa muxuu la oynayaa in aabihiisa ama aabahooda carruurtaa badan ee xaasaskaa badan aabahoodaas in la soo daayo waa in lacag lagu soo furtaa bal qisadaa gala aad aragtaane ogow hadduu ka dhalan lahaa dadka hubka haysta ama qayqayliya ama laandheerayaasha hadduu ka dhalan lahaa hal habeen ma uusa seexdayna laga yaabaa u fiirso intaasaan aragnaa qaaraan la aruurinaayo intaasaan aragnaa dagaal iyo balaay lagu dhawaaqaayo intaasaan aragnaa booto la booteynaayo u fiirso markay noqoto qofba qofkuu ka awood badan yahay ha dilo ha cuno markay noqoto maxaa dhacaya ma taqaanaa waxaa dhacaya in cidda xataa wax dilaysa inay nolol wanaagsan ku noolaan waana sidaad aragtaan bal Soomaaliya ii fiiri boqolkiiba dadka 95 تقريبا أما 96 maahan sida aan kuu sheegay inay sax tahay laakiin nisbada faqriga ah marka aad fiiriso waa Soomaalida intooda badan dadka Soomaalida waa faqri dad faqri ah waa intooda badan nololaad haysataa adiga مثلا ka soo qaad adiga noloshaada guriyaad degan tahay gaariyaad ku socotaa kaale eragaa tahay laakiin ma tahay qof hanti lahoo intaasoo adduun u kala socoto intaasoo sidaa ma tahay khaasatan dadka Soomaaliya joogan ka hadlaya Soomaaliga hadda marka dadka Soomaaliya jooga laba dabqadood ay kala baxaan laba weeyaan waxa ka hadlaysa dabcan Al Jazeera hadda kor ka hadashay CNN noofila inay ka hadashay laba u kala baxaan dad aad u sareeyo nolol fiican ku noolo la soo biilana ma ahan dadkaas la soo biila xataa iska faqiira dabcan diiba la soo biila qofka iska faqiira dabcan laakiin waa dad adiga wax haysta shaqeyste wax leh hanti leh kow ama maahan miya waa dad hooseeya middle class ama dadka dhexdhexaadka ahee nolosha normaalka haystee Soomaalida uma badna waa dad hooseeya ama dad sareeya waa labadaasi adduunkana ugu khaasatan adduunkan horumaray waxaa jira wax la dhaho middle class dad normaal ahoo sida dadku u badayna waa taasa nolol wada siman qofkii inuu qutilyoonkiisa helo qofkii inuu gurigiisa degan yahay qofkii inuu gaarigiisa wato qofka normal ma aan taajir faqiirna ma aan ibra ma aan sidaas lagu nool yahay marka sida waxa ka dhigay Soomaalideena naga dhigay ama maalin walba aad u arkayso abaar soo laabata gaajo soo laabata daad soo laabta balaayo soo laabta dhac soo laabta qarax soo laabta xumaan soo laabata waxa naga dhigay dulmigaas ummad dulmiga ku jirta ee dadkaasi masaakiinta aad dulminaysa dadka cunaysa adiga hadaadan sameyn dalka uga jira inaad ogtahay laga yaabaa dad taqaanida laga yaabaa war waxaan sidan u qaban karnaa waxay tahay wacyi gelin aniga hadlay
adigaa halkaa ka hadlaaya, adigaa halkaa ka sheergaraynaya, adigaa dadka la wadaagaya, waxyaalahan oo kale inaanan laba dul qaadan, waxyaalahan oo kale inaanan samayn, in aan carruurteena ku tarbiyano, ku barbaarino, inaan cid kale la nicin, in naceebka la iska saaro iyo wixii la midka ah. dadkan dulmanaya masaakiinta ah annaga nooga baahan yihiin gargaar, anay iiga baahan yihiin, adig kaaga baahan yihiin. ilaaha idinkiisa video khaas ahaan dabcan ku sheegi doonaa ilaaha idinkiisa, oo hadalkaasina wuu dheer yahay, kan hadda waxba kuma daraayo. arrin weyn insha allahu tacaala oo arrimahan ku saabsan, iyo soomaalida faqriga iyo gaajada iyo masaakiinta ee dilooday, bal waxaan ku caawin karno qof walba wuxuu ku caawin karo. ulama jeedo inaan sadaqa aruuriyo, inaan dadka lacag ka qaado, ulama jeedo, haba yaraateen la laakiin waa barnaamij aan soo jeedin doono insha allahu tacaala, noqon doono barnaamij joogto ah ilaah idinkiisa. laga yaabo in videogan kan ku xigo inaad arki doontaan, laga yaabo insha allahu tacaala. maxaa yeelay ummadeenna waxay u baahan tahay gacan qabad, ummadeenna waxay u baahan tahay waxbarasho, ummadeenna waxay u baahan tahay caqli celin, ummadeenna waxay u baahan tahay naceebka in laga saaro, ummadeenna waxay u baahan tahay cunsuriyeenta iyo liididda dadka la liido in laga tirtiro, laga baabi'iyo. haddaanan annaga samayn wallahi cid noo samaynaysa ma laha. ummad ayadaa isbadbaadisa. soo ma aadan maqal xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wassalaam, qisadii cajiibkahayd ku jirtay. rasuulka calayhi salatu wasalaam ayaa xadiidkan ka hadlaya. doontan ay saaran yihiin labadan qolona hoosay joogta, qolona koray joogtaa. qolada kor joogta mar walba waxay u baahan yihiin in ay kor aadaan si biyo ay u helaan. marka waxay dhibsadeen mar walba inay kor aadaan oo ay biyaha kor u doontaan ayay dhibsadeen. waxay dhaheen war dhagaysta, oo halkan ayaanmu duleeshan karnaa, maxaan kor u aadaynaa? biyaha hoosteena ba yaallaane, webigan biyaha ku jira hoosteena yaallaan. marka inaan kor aadno, dad dhibno, maanta dhan soconno, kornoo soo degno, maxaa nagu kalifaya? agteena yaallaan, aan duleelino, doonta halka aan ka duleelino, ka fujinno, kadib biyaha meesha ka soo darsanno. sidaasaa noo fudud, ayagana ma dhibayno, annagana isma daalinayne. hadalkaa u fiirso. muxuu ku leeyahay rasuulku? wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam, kuwa kor saaran haddaynan yac dhihin, war joojiya haddaynan dhihin, kulligooda way halaagsamayaan. kulligooda cid badbaadaysa malaha. kuwa hoos joogaana badbaadayn, kuwa kor joogaana badbaadayn. ilaan doontii way qariqmaysaa, biya ku furmaaya, soo maa? sidaa waxaa la mid ah haddaanan dulmiga iska qaban, xumaanta haddaanan iska qaban, oo annaga midba midkeena kale uusan qaban, waxaa dhici doonta ama dhacaysa inaan liidashada, abaarta, faqriga, gaajada, balaayada aan ku jirno un inaan ku jirayno Soomaaliya haddaanan iska qaban. muxuu ilaahay leeyahay ma taqaanaa? lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daa'uuda wa ciisa bni maryama dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun. maxaa? kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh. waxaa lagu lacnaday qolooyinkaas reer bani israa'iil buu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala carabkii nabiyullaahi daa'uud iyo ciisa bni maryam carabkooda lagu lacnaday. maxaa loo lacnaday? sababta maxay tahay? kuwaa si gaarooba maxaa loo lacnaday? waxaa loo lacnaday kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahawna, kuwaanan iska nahin, kuwaanan iska reebin, kuwaan gacmaa iska qaban. munkar hadday arkaan, xumaan ay arkaan, dulmi arkaan, cay arkaan, afxumo arkaan, dad la liida ay arkaan, kuwa aanay iska qabanay ahaayeen. bal iska dhaafa wayba samayn jireen. sidaasaa loo halaagay. war ummad hadday isku fiirsato xumaan iyo liidasho iyo dulmi iyo wixii la midka, hadday isku fiirsato waa loo baqaa. adiga maxaad samaynaysaa? kula gudboon, waxaa kula gudboon aad samaynaysaa in aad joojiso, inaadan ka qayb qaadan, in maanta aad meel iska saarto, in aadan taageerin, haba yaraata inaadan taageerin. waxa inoo ballan ah dardaarankan. diid dulmiga, jooji haddaad samaynayso dulmiga, sidoo kale ha taageerin dulmiga. dardaarankan waa dardaaran weyn, inaan joojino dulmiga, inaan diidno dulmiga, inaanan taageerin dulmiga ayaa inoo ballan ah, inoo dardaaran ah. qof walba haddaan adiga taageerin, haddaadan taageerin adiga, oo aad joojiso dulmiga ilaahay idinkiisa, oo aad diiddo dulmiga insha allahu tacaala ilaahay idinkiisa,
qof walba oo sidaa sameeyo wallahi way yaraanayaan cidda xune wax dulmaysa ha taageerin ha ka qayb qaadan qaaraan loo aruurinayo in cid lagu dulmiyo ha ka qayb qaadan qaaraan baraayo iyo colaad loo aruurinayo khaasatan dadka dibadaha jooga ee qaaramadaasi ka qayb qaata fadlan walaalayaal oo joojiya colaad xumaan qolo in lagu duulo xabada lagu gado war waxaasi waxaan kusoo baaba'na weeyaan wallahi waad arkaysaa way ka jirtaa weli Yurub ay ka jirtaa oo Mareykanka ka jirtaa waa wax jira waxaa dhacday muddo aanan saa u fogeyn waan idinku dheereeyay waan soo koobaa insha Allah taala muddo aanan saa u fogeyn ayaa rag aan saaxiibanahay waxay ka qayb qaateen qaaraankii markay ka qayb qaateen mid ayaa wuxuu yiri maxaa lacagtan noo weydiinaya maxaan u bixinaynaa sabab waxaa la yidhi qolo hebel ayaa waxay nagu soo sameeyeen sidaa iyo sidaa marka saa isaga difaaci laheen sidaan isaga difaaci laheen waa mar dhow aan saa u fogeyn waa dagaalada ka dhacay gobolada qayb ka mid ah saa isaga difaaci laheen ayaa loo aruurinaya difaac ma ahan ogow waa duulaan waxaa la isku haysto marka qaarkiis marka aad fiiriso ceelaa lagu dagaalamayaa qoladan waxay leeyihiin ceelka annagaa iskale ma ku soo dhawaan kartaan kuwan annagaa iskale kuma soo dhawaan kartaan war miyaynan awoodin inay midba maalin samaystaan qofkan maalin yimaado kaa maalin yimaado miyaynan awoodin waxaa lagu dagaalamaya wax aan haba yaraatee wax weyn ayaa dhiig loo daadinaya dad loo dilaya loo leynaya wixii la midkaa marka wuxuu yidhi marka ma taqaanaa qoladayna ayaa difaaceedan lacagtan u bixinayna miya wuxuu yidhi hadday sidaa tahay oo ay difaac tahay yaa garantii isiinaya inaynan ayaga duulin oo meeshooda marka loogu yimaado ay iska celinayaan ilan qutila duuna maalihi fa huwa shahiida la yiriye qofkii maalkiisa difaacda oo sidaa loo dilo waa shahiide yaa daamaanadna siinaya yaa garantii garaynaya inaynan ayaga duulaan ahayn qof hadlaa la waayay markaas rag badan ayaa ka shakiyo joojiye lacagta bixin marka waxyaalahaasoo qashinka ayaa ka jira dibadahan in Soomaali weli ay colaadii ku jirto dad taageeraya in dadka la cunsuriyeeyo la dhibo ama dadkaasi masaakiinta la cunsuriyeena ama la dhibaayo ama maxkamadda la saarayo dad lacag ku bixinaya inay xabsi ku sii jiraan hadda qoladan guriga mesela aan ka sheekeynayo oo kale mar walba lacag bixin uu yiri oo nagu xiro xataa hadaan lacag bixino waxaan noo sheegtaa awood ka badan tii annaga aan sameeyay tusaale ahaan lacag aan bixinay 2,000 aan bixinay 10,000 aan bixinayaan qoladii ama 5,000 aan bixinayaan systemkan wuxuu u shaqeeyaa cidii lacag badan bixisa ayaa meesha iska leh mentalitygaas waa inaan la dagaalanaa diidnaa biidinillah taala ilaah idinkiis intaasaan kusoo khatimayaa videogaas aad u ii xanuunjiyey taasna rabay inaan idinla qaybsado run ahaantiina waa wacyigelin ay tahay ummaddeena Soomaaliya inaan la qaybsano oo ah in la joojiyo taageerida waxyaalaha noocaas oo kale liita ilaahayna subxaanahu wa ta'ala nagama dhigo kuwa ka qayb qaata ilaahay idin barakeeyo khayr iyo wanaag ayaan isku ognaa insha Allah ta'ala inta channelkan kusoo biirtayna waad mahadsantihiin inta weli aanan kusoo biirin waxaan idin leeyahay kusoo biira wanaag badan wada qaybsanayna barakallahu fiikum barnaamijkaas aan sheegan insha Allah ta'ala mar dhow ayaad maqli doontaa Allah idinkiisa insha Allah ta'ala wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.